فيسدا أما دالكو قالك وقتين جبوتي مالنتا الحر نقطين أنا وائمي شربان لقاطي دولة جبوتي حاج حسن وكمل ياهي بعدهم كمل ياهي waxaan u cadeeyay anagu mabdi'iyan noo muuqato laba dal oo walaalo ah oo diris haddana ah wax u dhaxaya aan jirin in loo qaato ruqsad dalku gal anaga nalma aha anagu u goyn mayna adinku aad rabtaan u goost adinku xoolaha ka dooni mayno xaqdi iyo canaadna ugama danleyn maraadan kale ma jiraanin reer Djibouti mardu baasaboor Djibouti ana wato ha yimaado dalka markuu rabana ka baxo markuu rabana ha yimaado saas baan ku doonay dalka Soomaaliya waa dalkii Djibouti xornimadeeda keenay isagu waa xornimada Djibouti dalkii raadiye weeyaan Soomaaliya markay geeskan Afrika iyo Afrikaankaba ugu awood badnay Djibouti gacanta halka laabtay ku sidanaysay United Nations la tagtay OAU la tagtay jaamacadda Carabta la tagtay ururka islaamka la tagtay wadamada dhexdhexaadka meel walba iyadoo sidatay la tagaysay Djibouti oo soo soo xornimadeeda ku doonaysay Djibouti waxay ku bixisay maal naf iyo maalba way ku bixisay Djibouti military-na way joogsatay siyaasadna way joogsatay dhaqaalena way joogsatay Djibouti maalintii ay xorowday Djibouti cooshada ahayd jiingada ahayd waxba ma jirin meel cilaab ahayd Soomaaliya gacan qabatay oo maal gelisay oo wax walba u sameysay baambay u furtay lacag billions $6 bilyan oo dollar ka badan ayay Soomaaliya gelisay Djibouti injection si ay u socdaan oo u noolaadaan oo dawladdu hadaan caalamkooda u taagnaado ciidan ahaan way joogtay taas ay Djibouti wax la ilaawi karana ma qof kastoo reer Djibouti ku dhashay beriga jiray iyo ku aandalanba taariikhda ku hayaan Soomaaliya abaalkii uu gashana 1% ma bixin karto